sanad kasta Soomaaliland waxaa ka qalan jabiya jaamacadaha kala duwan kumanaan dhalinyaro ah oo hayaan dheer ugu soo jiray sida ay uga midho dhalin lahaayeen hamiga iyo higsiga ay lahaayeen waxaanay ku fikiri jireen sida ay dalka ugu heli lahaayeen shaqo kaafisan noloshooda walow dhalinyaradani ay ka cawdaan shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka haddana waxaa jira dhalinyaro la yimi hal abuur shaqo Arafat Ismaan Hindi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka baxday jaamacadaha dalka waxaanu la yimi hal abuur cusub kadib markuu sameystay meherad uu si farshaxanaysan loogu tababarka walow goobtan uu ku farshaxameeyay dharka aanay ahayn goob weyn haddana waxa uu ku fikirayaa inuu ka sii ballaariyo ganacsigiisan shaqadan dawaarka waxaan bilaabay sanadkii 2018 dhamaadkiisii inta markaan ka shaqeynayna marka sanadii 8 bilood ay noqonaysaa marka wallahi inta si wada kareenoo si wadaya marka wallahi ilaa marka sanadka hore ilaa 2020 intaba waan ka shaqeynay wallahi iskuulkayga dugsiga dhexe waxaan ka soo baxay Xaj Saalax Primary School secretary-gayga waxaan ka soo baxay wanila forkayga iskuulka maxaa gacan libaax jaamacadeedana waxaan ka soo baxay Armis University wallahi waxay ku kalifeen walaalka Cabdiraxmaan oo markii meel walba ay soo xidhay inkastoo aan dawaarkan ka shaqeyn jiray dhowr meelood ka shaqeyn jiray hadday supermarket tahay iyo hadday tahay iskuulaba iyo home teacher raba haddana la markii dambe waxaan ku dambeeyay inaan ka shaqeeyo muxuu ahaa dawaarkan marka wallahi wixii ku dhaliyeen waxa ahaayeen markii wallahi meel walba ay soo wada xidhay dadka tagtaba tiraan muxuu ahaa waxaan baa jira in soo ku bilaabay halkan wallahi xagga CV-ga marka laga hadlayo iskuulada muxuu ahaa berigaan dhigi jiray primaryada Al-Huda Secondary School berigaas dhowr jeer geeyay markii dambana wallahi ana iska daayay markii dambana muxuu ahaa xagan dawaarka iska furto kamid markii hore iska xiiseynay markii dambana campaign ku dambeeyay wallahi farintan dhalinyarada diray waxa weeye dhalinyarada waxaan la wada keenaamina ki shaqo abuureen sameynaya baha sameeyo wuxuu ku fiican yahay haday tahay farsamo gacan sida uu sheegay waxa uu talo iyo niyad dhis uu ka helaa dadka ugu dhow goobtiisa shaqo sidoo kale macaamiishiisa ayaa la dhacsan shaqadan uu qabto waxaan ahay horta customer Arafat oo mar walba isaga wax ka tolana hadii maryaha la yaranayo hadii wax laga tolanayo kale marka aad iyo aad baan shaqadan u hayo hambalyeynaya horta Axmed Ibrahim dalka TV Hargeysa